السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتنا شرفت له سو دوادا يوتيوب جانل دaawanaysa waa Soomaali Itijaabo Tony Koob. Sida aad sawirka niga muuqdo waxaan rabaa inaan idin wadaago 3 cudur oo ku dhaca qalbiga. waa ogtihiin muuqaalka sii horeeyay inaan uga hadlay faqiirka dhabta ah, waxaana ballan qaaday inaan soo sheegi doono cudurrada ku dhaca qalbiga. cudurrada qalbiga ku dhaca way badan yihiin, laakiin anaka sida arkayno waxaan ka soo qaadan doonaa idmo 3 cudur ayaa ka soo qaadan doonaa. 3 cudurna mid kastana waa faahfaahin doonaa, waa dul istaagi doonaa. cudurka ugu horeeya aan soo qaadanayno waa xaasidnimada. xaasid micnaheedu waa qofka nacban walaalkiisa inuu gaaro horumarka. ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri suuratul faraq aayad ugu dambayso wa min sharri xaasidin idaa xasad. sharta xaasidka waa laga culbaystaa. waxaa la yiri wa min sharri xaasidin idaa xasad. xaasidnimadana waa cudur ku dhaca qalbiga. qofka oo ku dhaco xaasidnimo malaka daabidan waa cudurrada ugu xun ee ku dhaco qalbiga. number 1 waxaa dhahay xaasidnimada. lambarka 2 waa uqdada hadii la qeexayo waxaa lagu qeexaa qofka ka maseeray wuxuu walaalkiisa kale micnaha haysto, micnaha maseer. qof lacalo waxaa tusaale ku soo qaadan doonaa 2 ilmo isla dhistay. ilmahan waxaa loo keenay dhar, cunuga kale wuxuu taagan yahay ay nacbantahay maxaa dhar ugu keen waas. micnaha uqdad waxaa lahaa qofka wuxuu haasto oo ka maseero. waxaa sheegay cudurka 2 ee ku dhaco qalbiga. haddaa dul istaago cudurka 3aad ay ku dhaco qalbiga waxaa ka mid ah xiqdiga makasaysan xiqdi waa af carabi, laakiin af Soomaali hadaan u sheego xiqdiga waxaa lahaa macali jiri dadka nacbaysti, dadka inaa nacbaysatid oo karaahsatid. qofka in la karaahsado ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay suuratul baqara وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. waxa inaka karaahsaysan khayr niga wixii ay inaka jacaysiin shar nileeyihiin. intaas ayaa ku soo koobay.